بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد walaalyaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii aan ugu talagalnay inaan isku xusuusino bishan barakeysan ramadaan sidaan uga faa'iideysan lahayn xalaqadan waa xalqadii 24aad ee xalaqaadkii koobnaa xalqadii tan ka horeysay waxaan wax si kooban aan u tilmaanay qayb ka mid ah tilmaamaha jannadu ay leedahay jannadaasoo tilmaanteedu aad iyo aad qur-aanka ugu fara badan yahay ilaahayna aad iyo aad inoogu faahfaahiyey nicmada iyo barwaaqada iyo khayrka dhex yaalla taasoo ujeedadu ay tahay in la xiiso geliyo dadka saalixiinta dadka iyo mu'miniinta inay u shaqaystaan oo ka fikiraan habeen iyo maalinba inayna fursadaasi dhaafin oo ay jannadaasi sidii ay ku kasban lahayn ay ku dadaalaan haddaba xalqadan waxaan kaga hadli doonaa qayb ka mid ah yacni tilmaamaha dadka ahlu jannada ah jannada yaa galaya يعني ذاتك سجلي تلمامه ذي محيين قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون آية في سورة آل عمران كجرت آية بقول يصدن يسدحادي بقول يصدن شانات أنت اللي قال سدح ذا آيات إلهي سبحانه وتعالى وحون يعني dadka mu'miniinta ku gubaabinaya inay u degdegaan oo ay u tartamaan dambi dhaaf ilaahay xaggii ka ahaaday iyo janno ballarkeedu samaawaadka iyo arlada uu maartay uu la eg yahay oo aad iyo aad u waasica inay u degdegaan jannadaasina waxaa loogu talagalay oo loo diyaariyey dadka ilaahay subxaana wa tacaala ka baqa marka dadka ilaahay ka baqa tilmaamay leeyihiin tilmaamahooda waxaa ka mid ah aladiina yunfiquuna fi saraa kuwa had iyo jeeraale wax bixiyo oo wadada ilaahay wax ku bixiya zakada bixiya sadaqada bixiya mashaariicda khayrka ee muslimiinta kaalmeeya dadka dhiban u naxariista dadka weeye wax bixiyo weeye oo fi saraa'i xaaladda ay faraxsan yihiin yacni faraxoodu iyo barwaaqada ay ku jiraan kuma xambaarin inay iloobaan dadkii kale inay iska weynaysiyaan markay barwaaqaysan yihiin bay wax bixinayaan والضراء markay dhib ku jiraan ay bixinayaan nooc walba oo wax lagu bixiyo ay ku bixinayaan haday jihad fi sabilillah tahay sadaqa haday tahay muxuu ahaa zaka haday tahay dad dhiban yani kulligood waxyaabahaas oo dhan bay ku bixinayaan waliba iyagoo yani aad iyo aad u dooranaya waqtiyada fadliga badan tahay sadaqada ma ilowsana nicmadan iyo maalkan ilaahay ba iyaga siiyey waana ku imtixaanaya inay wax ka bixiyaan ayaa shukrigana uu yahay aladiina yunfiquuna fi saraa'i waaddaraa waxa weeyaan sifada labaad waalkaadimiina alghayd kuwa caradoodii qariyo wey hadday caroodaan ma xadgudbaan oo ma caytamaan oo ma aragtay dadka ma dhibaateeyaan way caradoodii way ma aragtay waalkaadimiina alghayd waxay kontroolayaan caradooda oo caradooda dhib yani uu hogaamin mayso ilaahay hortii bay u sabrayaan sifada labaad way sifada saddexaad walcaafiina can innaas dadkana way iska cafiyaan dadkana way iska cafiyaan kii ayaga wax ka sheegay kii ayaga dhibaateeyey waa dad qalbigooda uu saliim yahay yani salaamatu sadr muslimiinta oo dhan bay u qalbi xaaran yihiin way iska cafiyaan si ayagana cafiskii ilaahay subxaana wa tacaala u helaan si ay cafiskii ilaahay u helaan waa kii ilaahay subxaana wa tacaala kulaha qur'aanka ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم حادثة الإفك مركي دعضي ودحوينتي نبيك عائشة لقبين أبورتي dadka ka qayb qaatayna ka mid ahayn dad xataa muslimiina oo waliba Abu Bakar qaraabo la ah Abu Bakar ninkii qaraabada la ahaa ee ka qayb qaatay wuxuu ku dhaartay inuu nafaqadii iyo kaalmadii uu siin jiray inuu ka gooyo
maadaama gabadhiisii uu jeclaa oo haweentii nebigana ahayd uu xumaan ka faafiyey oo waxba aan ka jirin. markaasaa aayado qur'aana soo degayo ilaahay subxana watacaala uu yidhi yaynu ku dhaaranin dadka ilaahay fadliga iyo dheeraadsiinta iyo maalka uu siiyey yacni inayan siinin oo ay ka joojiyaan wax siinta kuwa maaragtay masaakiinta iyo muhaajiriinta iyo maaragtay dadka qaraabada ee ayagoo ehelkoodii ah inay ka joojiyaan yayna ku dhaaranin. ha iska cafiyeen buu yidhi ilahi subxana watacaala, ha iska cafiyeen. يعني maxaa yeelay miyaydan jecleen inuu idinka ilaahay idin cafiyo? haddaad jeceshay inuu ilaa alle ku cafiyo adigana dadka iska cafi. habeen walbo habeenadan 10ka ah waxaan ilaahay ka barinaa cafis. allahuma inaka cafuun tuxibu alcafwa facfu cani. ilaahay oo adiga mid cafiyaa tahay, jecelna inaad dadka cafiso na cafi. adiguna si ilaa alle uu ku cafiyo iska cafi, dadka iska cafi dhammaantood. qofkii wax idin dhex mareen si cafiskii ilaahay subxaanahu watacaala aad u hesho wey. marka qaybtaas waa qayb ka mid ah qaybihii maaragtay dadka ahlu jannada ah. marka insha allah qaybaha ama tilmaamaha dadka ahlu jannada qaybo kalena xalqadaha kale ayaan kusii wadi doonaa. hada wabillahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.